dhawaan ayay ahayd markii ciidamada difaaca Puntland ee BSF socdaal howlgal ay ku tageen deegaanka Elhayo ee gobolka Bari ayaa socdaalkii halkaas ay ku tageen waxa uu ku saabsanaa korgalida xaaladda amni ee deegaankaasi iyo baahida dadka deegaanka ay qabaan waxaana ciidanka iyo saraakiishii hogaaminayay markii halkaas ay gaareen waxa ay la hadleen dadka deegaanka ayagoona ka xogoreystay xaaladda amni deegaanka iyo baahida dadka deegaanka ay qabaan kulanka kadib dadka deegaanka ayaa codsaday in qalabeen lagu sameeyo iskuulka deegaanka oo markaasi u baahnaa kuraas iyo miisas muddo kooban kadib ayaa baahidii dadka deegaankaasi ay qabeen waxaa si degdeg ah ugu jawaabay ciidamada xoogga Puntland BSF waxaana deegaanka maalmo kadib la gaarsiiyay qalabkii markaasi ay u baahnaayeen saraakiisha ciidamada xoogga Puntland BSF oo agabkaasi deegaanka gaarsiiyay ayaa agabkaasi waxa ay ku wareejiyeen nabadoon mursal oo ka mid ah nabadoonada gobolka Bari reecalay wasqaraynaa anagu mana hadda isku sheegay iskin bari meeno wax badan baan halka isugu nibi oo wax kastoo jira ka wada hadalay sida arrimaha bulshada amniga waxtarka kale oo mataqaanaa magaalada sida loo horumarin lahaa wax kastana waxa asal u ah amniga haddii amni la helo wax kasta waa la helayaa anagoo ka duuleena maalintii halkan loogu dameysay ballanqaad aanu samaynay oo ahaa iskuulakan markaan aragnay macnaha dayaca ka jira ama baahida loo qabo in la helo wax ardayda ku fariisato ayaan maanta waxaan ku wareejinay qalabkan iskuulka oo ka kooban kuraas iyo miisas ciidanka kumaadooska waxaan diyaar u nahay inaan mataqaanaa sida haddeerna ugu wareejinay qalabkan inaan sii dadaalno wixii karaankeenna ah oo aan diyaar inoo nahay idinkuna waxaa shacabkeenni baa tihiin annagu ciidan haddaan nahay beesta waxaan diyaar u nahay iyo heer iyo habeen baa diyaar u nahay inaanu dalka iyo dadka u shaqeyno caaqil iyo macallin iyo guddiga degmada waxaan ku wareejinaynaa alaab dugsiga hoose dhexe ee Ceelaayo aan ugu talagalnay anigu Cabdirasaaq Cali Dulanaa gaarsaanka sare ciidanka BSF waxaan idin guddoonsiinayaa qalabkan aan ugu soo talagalnay dugsiga hoose dhexe ee Ceelaayo laga guddoon caaqil nabadoon mursal ayaa ugu mahadceliyay ciidamada xoogga Puntland BSF iyo madaxdooda jawaabta ay ka bixiyeen codsigii dadka deegaanka mahadsantiin jazakallahu khayr runtii waa idinka guddoonnay halkan aniga waxaan ku wareejin doonaa insha Allah odayaasha Ceelaayood oo ugu horeeyo caaqil Abshir qaadi taliyaha maxaan ku rahdaa rugta oo la yiraahdo Cali Ayaan maxaan ku rahdaa macallinka insha Allah iskuulka mas'uulka ah odayaasha kale dhamaantood waxa weeyaan aad ba u mahadsantihiin runtii jazakallahu khayr qof kasta oo bulshadeena wax taraya oo ku soo kordhiya wax u manfac ah wuxuu mudan yahay in loo mahad celiyo waa mahadsantahay